gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee Puntland Nuur Ciise Maxamed oo u waramay warbaahinta dowlad goboleedka Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta keentay in aan wali la fulin xukunkii lagu huriyay 3 nin oo lagu helay kiiska Caaisha Ilyas Aadan. 3 xukun sano oo kala ah Cabdi Fataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdi Shakuur Maxamed Dige iyo Cabdi Salaan Cabdiraxmaan Warsame ayaa lagu helay inay ka dambeeyeen kufsi iyo dil bishii February ee sanadkii 2019 waqooyiga magaalada Gaalkacyo loogu geystay marxuumad Allah u naxariistay Caaisha Ilyas Aadan. gudoomiyaha oo la weydiiyay sababta aan wali loo furin xukunkii dilka ahaa ee lagu riday 3 xukun sane ayaa sheegay in ay wali xafiiska xeer ilaalinta Puntland ku xujeeyeen galkii xukunka fulinta oo ay ku lifaaqan yihiin warqadihii dhaxal koobka iyo codsigii qisaas dalabka ee ehelada marxuumad Caaisha Ilyas. dhinaca kale waxa uu tilmaamay in xafiiska xeer ilaalintu ay maxkamadda u soo gudbiyeen codsi ku aadan fulinta xukunka balse aysan ku soo lifaaqin warqadii dhaxal koobka iyo codsigii qisaas dalabka sidaa darteedna uu galkaasi kala dhiman yahay wali. ugu dambeyntiina gudoomiyaha ayaa cadeeyay in madaxweynaha Puntland uu wax saxiix ah ku yeelan karin kiiskan maadaama uu yahay xukun madaniya isagoo sheegay in madaxweynuhu uu saxiixi karo kaliya kiiska ciidamada qalabka sida. Cabdinajiib Maxamed Caano, Dalka TV, Muqdisho.